السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii maanta waxaa imanaya madaxweyne Dr. Saciid Cabdullaahi Deni oo muddo maartay Puntland safar kaga maqnaa meelo badan soo marmaray. waan ku faraxsanahay maanta madaxweynuhu inuu dib ugu soo laabto caasimadda Garowe ee Puntland. maanta golayaasha dawladda iyo shacabkii reer Puntland oo dhameystiran waxay diyaar ugu yihiin inay ku soo dhaweeyaan airportka Garowe ee caasimadda. waana ku faraxsanahay iyadoo xilli lagu jiro ay soo dhawaadeen doorashooyinkii aqalka sare ay wax yar ka dhiman yihiin aqalka hoosena uu ku xigo jadwalkii uu si fiican u soconayo. waxaan kaloo u hambaliyeynayaa guddidii loo saaray arrimaha gedo arrintii fiicneed ee soo qabteen oo u hambaliyeynayaa in khilaafkii ka jiray meeshaas ay soo dhammaystireen iyo tala bixintoodii. arrintaasna aad baan ugu hambaliyeynayaa guddidaas. runtii waxa weeyaan soo dhaweynta madaxweynuhuna maanta waa mid heer sare ah oo ka duwan soo dhaweynihii hore. waa dareemi kartaa golihii baarlamaanka, kii xukuumadda, kii garsoorka, shacabka qaybihiisii inay maanta joogaan airportka oo ay sugayaan madaxweynahoodii si maqaam sare leh ay rabaan inay u soo dhaweeyaan. aniguna waxaan ka mid ahay xildhibaanada golaha wakiilada dowladda Puntland oo saaka halka u yimi inaan madaxweynaha soo dhaweyntiisa qayb ka noqdo. Puntland TV waana mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad idinkuna shaqadiina haysataan.